وكما كاميرون هيرني وويل كان دادير ee hortiina ka muuqda ee leh wajiga qurxoon oo aad wajigiisa u maleynaysa waji bariya waa kow iyo 20 sano jir u dhashay wadanka Mareykanka kaasoo lagu maxkamadeeyay xabsi gaaraya 4 ilaa 20 sano oo xarig ah intaan u godogalin xogta wiilkan da'dayar ee maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada saameynta aad ku balaaran ku yeeshay qaasatan barta TikTok fadlan walaal macaan marka hore waxaan ka codsanayaa hadda channelka cusub tahay inaad subscribe nagu caawisid sidoo kale inaad gambalelka furatay si aad waqti walba u helkeena u ahaatid hadda hore channelka ugu jidhay inaad video like gareysid siina share gareysid wixii faahfaahin iyo wixii warcelin ahna xagga hoose ee commentiga inaad nagu reebtid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cameron Herney waa 21 sano jir u dhashay wadanka Mareykanka kaasoo lagu xukumay xabsi gaaraya 4 ilaa 20 sano oo xarig ah sababta maxkamadeyntiisa ka dambeysay ayaa waxay ahayd in gacmihiisa ay galaafteen laba ruux oo la kala oran jiray Jessica oo ahayd hooyo 24 jir ah ee gabadheeda yar oo lagu magacaabo jiray Lily oo ahayd gabar yar oo jidhay hal sano iyo 9 bilood dilkan ayaa waxa uu dhacay 2018 bishii May 23keeda qaabka dilkan uu dhacay waxa ay maalinkan waxa soo raacay Cameron Herney iyo saaxiibkiisa oo lagu magacaabo John Birney labada saaxiib ayaa waxay soo aadeen jimka inta jimku soo socdeen ayaa waxay go'aansadeen labada saaxiib inay galaan tartan baabureed oo ahaa mid sharci darro ah labada saaxiib waxay kala wateen Cameron Herney waxa uu watay oo ku tartamayay gaari ay soo saartay shirkadda Ford midabkiisuna uu yahay madow halka saaxiibkii uu watay gaari ay soo saartay shirkadda Nissan midabkiisuna uu yahay dahabi waxa la sheegay oo la qiyaasay in Cameron Herney gaarigiisa uu jiray saacadii waa inta tartanka uu ku jiray 100 mitir xawaare gaariga 100 mitir xawaarahaas oo ahaa xawaare aad iyo aad u sareeya hase ahaatee si kaliya labada saaxiib waxay wadada kula kulmeen gabadhan lagu magacaabo Jessica oo ahayd mid lugeynaysa sidoo kalena wadatay gabadheeda yar ee Lily labada saaxiib waxay isku dayeen in gabaaridooda ay xakameeyaan ama ay controlaan labadooda ay ku guuldareysteen in labadooda gaari ay xakameeyaan ugu dambeyn gaarigiisa waxa qadka kala baxay oo wadada ka saaray John Birney taalidkeeda waxa gabay ahaan gaarigiisa control waayay Cameron Herney oo halkii waxa uu ku jiray Jessica iyo gabadheeda yar oo goobtu waxa ku nafwaayay oo ku ruux waayay Jessica iyo gabadheeda yar falkan ayaa waxa uu dhacay 2018 bishii May 23keeda maxkamadeynta wiilkan ayaa waxay dhacday 9 Abriil 2021 sanadan aan ku jirno in 3 sano ayaa la sugayay maxkamadeyntiisa sababta inta loo sugayay ayaa waxay ahayd in ilaa inta uu ka qaangaarayo wiilkan yar si loogu maxkamadeeyo xukun qof weyn goobta maxkamadeynta ay ka dhacaysay waxa joogay oo ku sugnaa gabadhii dhimatay Jessica ninkeeda oo lagu magacaabo David waxa uu sheegay markii hore in aad iyo aad ugu xun yahay gaaridii ku timi xaaskiisa iyo gabadhiisa yareed sidoo kale waxa uu sheegay in aad iyo aad ugu faraxsan yahay xukunka maanta lagu riday wiilkan da'da yar ee Cameron Herney isla goobtaas waxa ku sugneed Cameron Herney hooyadii oo lagu magacaabo Charlie Herney waxa ay sheegtay in aad iyo aad ugu xun tahay waxa ku dhacay wiilkeeda sidoo kale waxay sheegtay in marar badan wiilkeeda ay kaga digtay ficilada uu sameeyo hase ahaatee uu iska dhiga tiri jiray sidoo kale waxay sheegtay wiilkeeda wiilka ka yar oo lagu magacaabo Tristan Christopher Herney oo ah walaalka la dhashay Cameron Herney in dhibaato maskaxiyan inay soo gaartay sababtoo ah waxa uu la socday walaalkii markii uu shirka galayay Charlie Herney waxay sheegtay in ay jeclaan lahayd in booska wiilkeeda in ayada ay gasho 24 sano xarga in ayada ay qaadato isla goobtaas waxa lagu maxkamadeeyay wiilka lagu magacaabo John Birney kaasoo lagu maxkamadeeyay xabsi gaariya 6 sano qaadiga maxkamadeynta gooniya ayaa waxa uu sheegay sababta xukunka inta laga wiilka ugu maxkamadeeyay inay tahay inuu kuwana qaataan dadka raba ficiladiisa oo kale inay sameeyaan ama dadka hadda ku guda jira ugu dambeyn fiidiyoyaal laga soo duubay wiilka markii maxkamadeyntiisa lagu dhawaaqay ayaa waxay saameyn aad iyo aad u ballaaran ku yeesheen baraha bulshada sidoo kale waxay dood aad iyo aad u ballaaran ka dhaliyeen baraha bulshada dadka qaar ayaa ku doodayay in si sharci darro ah wiilkan loo maxkamadeeyo oo xukun uusan u qalmin qoorta loo suray oo waxay leeyihiin wiilkan markuu falka geystanayay ma ahayn mid oo la kac u geystay oo si kaliis ayuu falka u dhacay halka dadka qaar ay leeyihiin in maxkamadeynta wiilkan la maxkamadeeyo si sharci ah loo marayo oo xataa xukunka loo yareeyo oo ahayd in 30 sano surka loo geliyo fadlan walaal macan adigaan ku weydiinayaa sidee u aragtaa wiilkan xukunka lagu maxkamadeeyay ma xukun daacad ayaa loo maray mise xukun aan daacad ahayn ayaa wiilkan lagu maxkamadeeyay aragtidaada waa noo muhiim wixii fikradda xagga hoose ee commentiga noogu reeb aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay